بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Bio Academy. halkaad nagala socotaan waa YouTube channelka iyo page-ka aan ku leenahay Facebook-ga ee Bio Academy. kusoo dhawaada arday waxaynu ku guda jirnay duubista casharadii dugsiga sare gaar ahaan fasalka 12aad ee form 4 fasalka 12aad ee form 4 duubistiisa ayaan ku jirnay. waxaynu maraynay maadada physics-ka ah chapter-kiisa koobaad. waxaynu qaadan doonaa maanta du'aaleed insha Allah ta'ala cashirkii labaad. waxaan hore u soo qaadanay cashirkeeni koobaad balse intaa ka hor si arday badan uu gaaro cashiradan fadlan share garee adna ajira kuuga socda ka faa'iideysan ardayda Soomaaliyeed. waa cashiro free ah oo wax isdiiwaangelin aan laga rabin kaliya YouTube channel-ka subscribe sar kana daawo cashirka gambalelkana furo mar walba si uu kugu soo dhaco. sidoo kale page-kana follow garee Bio Academy YouTube channel iyo Bio Academy Facebook page intaba. chapter-keena koowaad ee oscillatory motion introduction-kiisa hore ayaa kaga soo hadalnay. waxaa ka soo hadalnay waxa loo yaqaan periodic motion socod kareed maxaa la dhahaa. sidoo kale waxaa ka soo hadalnay oscillatory motion maxaa la dhahaa oo socod walhadeed ah. waxaa ka soo hadalnay periodic motion inuu laba u qaybsamo oo yahay oscillatory iyo non-oscillatory. sidoo kale waxaan soo faafahinay waxa loo yaqaan period iyo frequency oo kaliya rakaad ah. maantana du'aaleed insha Allah ta'ala waxa qaadan doonaa waxa loo yaqaan simple harmonic motion socod isku dubaridan oo fudud. simple harmonic motion SHM maxaa la dhahaa marka? It's a type of motion waa nooc kamid ah socodka. It's a type of motion waa nooc kamid ah socodka under the influence of ka oo saameyn uu ku leeyahay restoring force xoog keedsan. restoring force xoog keedsan described by xooggaasna waxaa qeexay ama loo yaqaanaa Hooke's law. xeerka Hooke loo yaqaanaa. Hooke sida wada naqaano waa saynisaan caan ah u dhashay dalka Ingiriiska loona yaqaano Robert Hooke. wuxuuna ka qayb qaatay ama contribution uu ku lahaa meelo badan sida cell sida microscope-ka iyo wixii la midka. Robert Hooke waa la wada yaqaanaa waa nin caan ah. waxa uu inta badan ka hadlay marka la joogo physics-ka waxa loo yaqaano elasticity-ga ama waxa loo yaqaano dabacsanaanta moolada ayuu ka hadlaa inta badan. marka maadaama shaygan tusaale ugu badan ee loo soo qaatay simple harmonic motion markii la joogo ay tahay spring Hooke's law ayaa inta badan ka hadlo. restoring force maxaa la marka xoog keedsan maxaa la is a force waa xoog which acts to bring ka oo shayga ku haynaysa to its equilibrium position bardheelitirankiisa. to its equilibrium position bardheelitirankiisa. equilibrium position maxaa la shayga haddaysan force kale ama xoog kale saameynin barta uu ku sugan yahay oo nagaashada uu ku jiro waxa loo yaqaanaa equilibrium position. si aan u sharaxno marka simple harmonic motion waxaa muhiim ah inaan soo qaadano mass attached to the spring cuf lagu xiray moolo. mass attached to the spring cuf lagu xiray moolo. waxaa dheena marka consider tixgeli a mass m attached to end of the spring ka oo lagu xiray dhamaadka moolo. waxaa dhahnay moolo ayaan waxa ku xiraynaa dhamaadkeeda cuf ayaan ku xiraynaa. the other end of the spring dhinaca kale ee mooladan waxaan ku giijinaynaa ama fixed waxaan ku dhajinaynaa at the frame support waxaan ku dhajinaynaa meel haynaysa ayaan ku dhajinaynaa as shown sida ka muuqan doonto in the flowing figure shaxda sawirkan soo socda sida ka muuqan doonto. the whole system habkan guud oo ah moolada dhinacan uu kaga dhagan yahay mass dhinacan uu kaga dhagan yahay maxaa la meel dhagan oo fixed aan dhaqaaqayna kaga xiran tahay. the whole systemka guud ahaan is placed waxaa la dhigi doonaa on a smooth horizontal surface ooga siman oo jilicsan oo frictionless ah aanan lahayn wax islisa frictionless ah. if we displace haddaan bara bixinada mass cufka haddaan bara bixino from its main position bardheelitirankiisa haddaan ka sikino oo ahayd tusaale oo kale bar oo la dhaho noo yaala sawirka dambe ku arki doona du'aaleed insha Allah ta'ala. haddii aan sikino to a point A oo aan gaarsiino bar loo yaqaan A by applying anagoo gelinayna external force xoog dibadeed it is displaced wuu barabaxaa shayga wuxuuna u barbixi doonaa positive direction. x waxaa loo qaataa displacement barabax sama wuxuu u barbixi doonaa positive direction oo lagu wado to its right dhanka midigta u barbixi doonaa. there will be sidoo kale waxaa jiri doona meeshaas restraint force xoog celin doono. restraint
force xoog celin doono the mass cufka celin doono equal to F kaasoo like F on the left side wuxuu u celin doonaa dhanka bidixda u celin doonaa directionka xooga uu socdo maxay daan gelin anaga waxaan u jiidnaa dhanka midigta waxaa jiri doona xoog u soo celin doona dhanka bidixda moolada hadda sii dayno which is applied by the spring ka oo moolada hay doono waa kana marka mass attached to spring intana laga wada marka soo fiiri marka sawirkan ku wareerin wuxuu leeyahay A B iyo C ila soo cafadla marka A mooladu waa tana waa sida normal ka markay joogto equilibrium position bardheelitirka waxa loo yaqaan dash line kan waxa waaye force dan external force ma saameenin bartana waxa loo yaqaan markay taagan tahay equilibrium position ay taagan tahay m ta ama maska wuxuu taagan yahay equilibrium position bardheelitiran ayuu taagan yahay bartan markuu joogo equilibrium position kiisa soo joogo waxa isticmaalnaa external force xoog dibadeed ay isticmaalnaa marka xoog dibadeedkii muxuu sameeyay displacement wuu barabixiyay displacement ayuu sameeyay wuu barabixiyay oo m ah m intee tagtay marka fiiri oo way joogtay markeedii hore way sikatay waxay tagtay a barta loo yaqaan hore u soo aragnay Soomaan qaybtii hore waxa ku soo aragnay m waxa laga soo sikiyay bartii originalka oo ahayd waxa la geersiyay a oo bar cusub ah maadaama xoog la geliyay darteed displacement ma barbax intuu sameysmay right side dhanka midigta positive direction oo aad marka jiha wuxuu aaday plus ah waxaan ognahay xisaabta waxaan ku barnaa waxa loo yaqaan Cartesian plane shaxda Cartesian waxa loo yaqaan vertical lines waxa loo yaqaan y axis horizontal lines waxa loo yaqaan x axis loo yaqaan x axis ka markii original point oo 0 la joogo midigta waxa ka xiga positive bidixdana waxa ka xiga negative hada marka equilibrium position kan waxay noo tahay original point midig waxa ka xigi doona marka displacement wuxuu aadi doona positive direction laakiin fiiri taalidkeed fiiri marka displacement ga duu aada right side xooga mooladan celin doona moolada meesha ka sii deeno barta may tagnaane maya way laaba doontaa maxaa celi doona marka xoog loo yaqaano resonating force xoog keedsan xoog loo yaqaano yaa celi doona xoogan keedsan mar walba jiha ahaan wuxuu lid ku yahay direction ka uu socdo barabaxa soo fiiri markii la soo daayay barteeda mi istaagina maxay sameeyay xitaa equilibrium position bardheelitiranka way gudubtaba mooladu way gudubtay maadaama xoog jiidoy haddana maxay sameeyay way soo gudbay way laabane maanta maxaa waay back forth hori gadaal u dhaqaaqay shay ka soo hori gadaal u dhaqaaqana maxay sameey jiray oscillatory motion socod walaalaheedu sameey jiray bida maxaa la qaybta damsiida fiiri marka originalka ama oodi barti loo yaqaan oo soo gudbaa b imaane marka maanta waxay u dhaxay doontaa a b ilaa xoog oo ka daciifo marka dambe ay istaagto socodka noocan waxa loo yaqaan periodic motion socod galeeda loo yaqaan sababtoo ah waa socod la laabanayo waqtina qaadanayo ila socod marka according to Hooke's law markii loo fiiriyo xeerka Hooke markii loo fiiriyo force F ama force wax loo yaqaan jiha ahaan wuxuu lid ku yahay displacement-ga jiha ahaan wuxuu lid ku yahay displacement-ga laakiin wuu ku xiran yahay hadii displacement maxaa la xoog la kordhiyo barabaxa uu kordhaa hadii xoog la gelinayo moolada la kordhiyo aad loo jiido barabaxana wuu kordhaa hadii wax yar la jiidana barabaxa uu yaraana marka waxa marka direction ka maxaa la direction jiha ahaan lid isku yihiin laakiin way isku xiran yihiin relation ahaan oo xiriirka ka dhaxeeya waxa loo yaqaan direct proportional samigal qumana loo yaqaan marka negative sign marka calaamadan negative ka maxay sheegaysaa indicates waxay sheegtaa that the resulting force xooga keedsan is opposite inuu lid ku yahay to the displacement in direction barabaxa inuu lid ku yahay jiha ahaan keedana maxaa marka spring constant loo yaqaan ama waxa loo yaqaan proportion constant sami waxa la sugnaanta saami loo yaqaan ama sugnaanta moolo labada mid arabta dhe كم حوت أنت ما كسبرين كل سنتين وتاين تاي أو محل سكنات مولا if we release mass هدي أن سيد إنه عفك M at a point A أسود جوجو برت A هذا كسو دينه برتان A مركو جو هدي أن سود دين محد عاي وحد دون هدي أن سود دينه it moves forward هرو جود بدونا to O هذه دونا at a point O مركو جو هي will not stop ميساي دون but moves وحود دقائق دونا forward هرو دقائق دونا ولي towards point B wuxuu aadi doonaa ilaa iyo barta B oo aadi doonaa inta ka soo dayno bartan A xoog ku weyn wasiidayna bartan O original ka misaagi doonaa wuu gudbi doonaa ilaa wuxuu tagi doonaa barta B oo tagi doonaa
due to waxa u sababa marka inertia wehsiga u sababa and covers the same displacement wuxuu dabooli doonaa barabax lamida kii oo right side-ka uu daboolay sidoo kale maxaa la left side-ka oo minuskane barabixii inta in lamida ayuu dabooli doonaa at point B markii la joogo marka point B ga once again sidoo kale restoring force xoogi keedsana acts upon it wilu maxaa lagu sameeyna but now on right side dhanka midigta u soo riixi doona marka hore inta u riixay bidix hadda inta u soo riixi doona midig oo bidix misaagi doonto wili in this way sida ay ku socod doonta it continuous it is motion socodka si socod doono from A to B A ka soo dhaqaaqay B aade and B to A marna B ka soo dhaqaaqay A aade according to marka la fiiriyo marka Newton's second law of motion xeerka labaad ee Newton xagga socodka marka la fiiriyo kaas oo lagu qaatay galaaska koobaad ee dugsiga sare ama fasalka sagaalaad force oo F produces waxay soo saartaa acceleration karaar soo saartaa in the body shayga ay ku soo saartaa which is given by taas oo lamida force waxa lagu helaa mass ku dhuftay acceleration waxa ku soo barana form Soomaan hadaayeen waxa soo qaadana qaacida kale oo ahayd force waxa la mid tahay kx hadda marka waxa isku fiirinayna force maadaama la isla yihiin productigooduna uu isla yahay kx waxa isla keenayna ma waxa la mid tahay markaas kx labada maxaa la equation isla eg yaa isbarbar dhigayna ma waxa la mid tahay kx hadda marka acceleration soo saar karnaa intana m qaybi intana m qaybi acceleration wuxuu la mid yahay marka kx oo loo qaybiyay m laakiin direction ahaan waxa way acceleration ku wili muxuu lid ku yahay displacement-iga barabaxa laakiin hadii displacement uu kordho acceleration uu kordhaa displacement-iga duu yaraado acceleration uu yaraana xiriirka ka dhaxeeyo noocee way waa xiriir loo yaqaan direct proportional saamigal quman xiriir loo yaqaan marka Hooke's law xeerku muxuu sheegaa marka says that xeerkan wuxuu sheegaa the restoring force xooga keedsan of spring moola ku keedsan is proportional wuxuu saamigal quman la leeyahay to the displacement barabaxa aan opposite direction laakiin jiha ahaan maxaa way liido ku yahay warkaan oo warka maanta daldalayna marka lesson formulas xeer maxaa la qaababka iyo qaacidooyinka ku shaqeey doona ashirkan inta joogna marka force maxaa lagu helaa waxa lagu helaa kx direction ahaan laakiin lid ku ah negative marka negative kx lagu helaa ogo force marna maxaa lagu helaa mg waa markay weight la mid tahay markii weight-ka ee weight wuxuu la mid yahay mg Soomaan marna xusuusnaaw force waxa lagu helaa ma waa markii la joogo Newton's second law of motion intaas oo dhan marka waxa way force k maxaa marka waxa la mid tahay force loo qaybiyay x la mid tahay acceleration waxa lagu helaa kx loo qaybiyay m calaamada slash waxa laga wadaa oo qaybiya laga wadaa intaan haysana waxa soo gaarnay tusaalaheeni saddexaad ee chapter-ka koobaad tusaalahan saddexaad wuxuu leeyahay what's the magnitude waa maxay lixaadka of the force required xooga loo baahan yahay to stretch si loo jiido a 20 cm long dhirir moolo ka oo la eg to the 20 cm long spring moolo dhirirkeedu dhan yahay 20 cm si loo jiido with a spring constant moolaas maxay leedahay sugnaan moolo oo dhan 100 newton per meter to a length lana gaarsiiyo 25 cm waxba wareerin buugaaga iyo qalinkaaga soo diyaarso 30 second kugu filan tahay furo page cusub ku qor example 1.3 waxaan aadi doonaa sabuurada oo wada shaqeyn doonaa du'aalid insha Allah taala balse inta waxa ka horeeyo ardayow hadii aad u baahan tahay inaad faham dheeri ka qaadato maadooyinkan loo yaqaan scientific subjects-ka si gaar ah xisaabta iyo physics-ka waxay u baahan yihiin wax loo yaqaan calculation waxay u baahan yihiin wax loo yaqaan inaad qalin iyo buug inta qaadato wax badan practice samayso si practice-ka u samayso marka koowaad tusaalaha adoo u jeedo fiirinaya raac marka labaad waxa samaysaa qayb iska qari mar fiiri marna maxaa la iska qari marka saddexaad waxa samaysaa iska wada qari ee adoo kaliya ayna ka shaqeyso isku day given-ka inaad soo saaratane waa muhiim tusaale kasta marka ka shaqeynayna du'aalid insha Allah taala waxaan mari doonaa saddex heerka koowaad waxa loo yaqaan inaad soo baxsano given-kina la siiyay ama mucdiyaadka waxa loo yaqaano heerka labaad waxaan mari doonaa requirement-iga ama waxyaabaha naloo diray inaan ogaano heerka saddexaad ugu dambeeyana waxa waaye inaan xalintii iyo furfuridii agalno solution-ka agalno hadda tusaalahan inta ku qoran bal fiiri what's the magnitude waa maxay lixaadka of the force required xooga loo baahan yahay su'aasha automatic loo nala diray maxaa nala diray magnitude of force lixaadka xooga nala diray direction-kiisa ma naga rabo
هاي محل سي مرك تو استريج سلو جيد محل جيدا 20 سنتيمتر لون سبرين مولا دركيودي هاي 20 سنتيمتر لجيدا لكن انت لغارسيرو ويل ما شيغin displacement ما بهستيبو with a spring constant مولا لكن waxay leedahay sugnaan moola oo dhan 100 newton per meter kan muxuu leeyahay k y spring constant yalla spring constant waxa loo qaataa waa k to a length waxa la gaarsiin doonaa dhirra 20 centimeter barbaxi ah marka mooladu waa 20 waxa la gaarsiinaa 21 meeqa u dhaxayso halka centimeter waa barbaxi marka waxaan aadi doonaa sabuurada du'aalad insha Allah taala isoo raac marka ay example keena saddexaad ee chapterka koowaad waxaanu ku qaadanaynaa example la xiriira socodka loo yaqaan socodka isku dibaridan ee fudud simple harmonic motion example wuxuu u baahan yahay in gacanta loola tago oo qalin sabuurada la qaato sida darteed waxaan imaanaa sabuurada ee la socodii kala du'aalad insha Allah taala waxaan ku soo aragnay tusaalaha waxaana la siiyay waxyaabo loo yaqaan given iyo waxyaabo loo diray oo requirement loo yaqaan iyo furfuridii saddexdaas qaybood du'aalad insha Allah taala yan tusaalaha u kala qaadi doonaa waxay noo qoran waxaad sheegtaa lixaadka xoog loo baahan yahay si loo jiido moolo cabirkeeda ama maxaa la barabaxeedu yahay 20 centimeter loona gaarsiiyo 21 centimeter haddii xooga moolada ku keedsan ama wax loo yaqaan spring constant uu yahay 100 newton per meter waxa qornayna marka hore waxa loo yaqaan given tusaalaha inta ku jirnay maxaana la siiyay waxaana la siiyay mooladu barabaxeedu inuu yahay from 20 centimeter to 25 centimeter laga soo bilaabo 20 centimeter ilaa 21 centimeter sidoo kale xooga moolada ku keedsan ama spring constant waxa loo yaqaan wuxuu leeyahay 100 newton per meter intaas uu leeyahay waxaa jira marka loo yaqaan requirement maxaana looga baahan yahay requirement waxaana looga baahan yahay inaan soo xisaabino waxa loo yaqaan force ama lixaadka xoog ayaa looga baahan yahay force hadda waxa aadayna marka furfuridii solution de marka solution waxaynu ognahay marka la joogo force simple harmonic motion marka la joogo force waxa lagu helaa k x laakiin direction ku yahay inverse direction jihad ku ah jihada barabaxa uu dhacay ana hadda marka maadaama loo diray magnitude direction kuma baahan marka maadaama loo diray lixaadka bis maadaama loo diray uma baahna jihada shayga oo u dhaqaaqay waxaan leenahay markaas displacement-ga aan haysano oo 20 ilaa 21 ah noo kala jar displacement-gu wuxuu la mid yahay 1 centimeter waa halbeeg aan ahayn SI unit asaga waxa u bedeli doonaa marka SI unit hadii centimeter la rabo in loo bedelo meter wuxuu la mid yahay 1 centimeter loo qaybshay 100 oo la mid ah 0.01 meter inta kale loo haysana xadina marka force waxa la mid tahay k oo lagu dhuftay x k ma haysana 100 lagu dhuftay x ma haysana 0.01 force waxa la mid tahay marka scientific soo qaada calculator-kaaga waxa isku dhufataa 100 iyo 0.01 waxa la mid tahay 1 waxa lagu cabiraa force marka waxa lagu cabiraa newton example keena saddexaad ee chapterka koowaad halkaas ku dhan yahay tusaalaha afraad ee chapterka koowaad waxay noo qoran sidoo kale what's the spring constant waa maxay sugnaanta moolo oo spring ay moolo leedahay that needs a force taa oo u baahan xoog dhan 3 newton 3 newton to be compared si loo cadaadiyo from 40 cm to 34 cm meesha xamayna inuu qalad ku jiro 35 cm laga rabaa from 40 cm to 35 cm in laga soo cadaadiyo 40 cm lana soo gaarsiiyo 34 cm su'aashaan oo dhan noo qoran waxa xoog saari doonaa given kabis iyo requirement-ga aawe waa asal soo hormariyo waxaan leeyahay was the spring constant maxaa loo diray marka k aan loo diray maxaa la siiyay marka waxay u baahan tahay marka mooladan si loo riixo xoog dhan 3 newton wuxuu ku cabirnaa aragtay micnaheedu maxaa waay waa force 3 newton 3 newton waa force f waxa la mid ah marka 3 newton given ka qornaa to be compared si loo cadaadiyo inta laga soo cadaadina from 40 to 35 meeshan 34 ka dhigo 40 ilaa 35 intaas laga rabaa
afartan iyo soddon iyo shan meeqa u dhexeysa marka shan u dhexeyso barbaxa la sameeyo meeqa waa 5 centimeter bis waa marka given ku haysanaa mar labaad nakeen sabuuradii awada aadna isla xalino saddexdii haday aan marnay step ayaa mari doonaa insha Allah ta'ala ay example ka afraad ee chapter koowaad asna wuxuu ina leeyahay waxa soo reedisaa xooga ku keensan moolo hadii xooga la isticmaalay ee moolada lagu jiiday ama lagu riixay uu leeyahay 3 newton mooladan waxa la rabaa in la riixo la cadaadiyo from 40 cm to 35 cm barbaxa 40 cm ilaa iyo 35 cm inta u dhaxayso sida hore u naqaanaybo waxa sameysanaynaa saddexda qaybood ee wax ku xalli jirnay oo ay given requirement iyo solution of Florida saddexdaas qaybood laga rabaa marka given waxayna waxyaabo example ka gudihiisa lagu leeyahay maxaana la siiyay marka waxaana la siiyay xooga la isticmaalo si moolada loo riixo wuxuu leeyahay 3 newton force xalaatay 3 newton هذا شيء نيوتن كعبرا automatically حوالي شيء قصوا force أما هو حب سيدو كانوا حنا سي بربحها مولد أو حنا مولد 4 سنتيمتر إلى يصير 20 سنتيمتر تقول حسنا قربا مولد اللي قصوا جيدو إلا على ذي 4 سنتيمتر لا يو صدق 20 سنتيمتر ما يقول حسنا مرك وحاول حسنا 4 يصير 20 كرجو و 5 سنتيمتر بربحها مولد اسمها سبحان قدنا 5 سنتيمتر requirement waxaan loo baahan yahay waxaan loo diray spring constant waxa loo yaqaan ama xooga moolada ku keedsan k ana kala rabaa marka aan furfurno marka solution hay anagoo haysano force haysano displacement k maraadi karnaa ha force waxa lagu heli jiray k x كي محل وهلا مرك كي محل وهلا ما دام كي أو بعنتها كي وحلا الصعود الله بدنا نعود قابل أنت نعود قابل صار إكس أنت نه إكس وقابل لا والله أصلا بحيا مرك أنت محل سؤال كي محل ميتها مرك فورس لو قابل displacement أنت أصلا ميتها أنت أنا قاعد ضمن دعاء الله بإن شاء الله تعالى قاعدين نسمع لدونا كي محل ميتها فورس لو قابل إكس displacement يعني أنت أسمع لدونا مرك displacement 5 سنتيمتر وايه سنتيمتر كما هن البيج عالمية أما إس أي يلد معنا سنتيمتر كاسمه بدل 5 سنتيمتر 6 سنتيمتر متر لو بدله وحاول حيسب بقول مركي هالبيج يلا لقى صعدنا مدوين لا صعدنا حالة استعمالها وقايبين وحالة إذا مركي 5 لو قايب شيء بقول ولا ماذا 0.05 متر كي محلوها على مركي وحلوها على فورس ما قاعد سنة 3 لو قايبي x ما قاعد سنة 0.05 وحاسم يسمى 3 لو قايب شيء 0.05 انت حاسم يسمى كالكوليتر قلي مرك حساب انتاس 3 لو قايب شيء 0.05 وحيسو بحضي 60 نيوتن برمتر 60 نيوتن برمتر نيوتن برمتر محاطة يا مرك نيوتن برمتر وحاوي فورس وحاوي عبر رجل نيوتن displacement وحاوي عبر متر 60 نيوتن برمتر الإكزامبل كان شناد وحينو قرن 5 كي جي ماس شيء عفكيسو ياي 5 كيلوغرام يا سسبندد laga soo laadlaadiyay xagee from spring moolo produces waxayna soo saartay mooladu ama cufku wuxuu soo saaray a displacement barabaxdan 20 cm was the spring constant waa maxay sugnaanta moolada tag waxa qaadata ama use waxa isticmaalaa g gravitation kunu lamid yahay 9.8 meter per second acceleration due to the gravity waxa loo yaqaan ama cufisjiidad kunu lamid yahay 9.8 meter per second square nu lamid yahay given ka ay sanad noo soo bixi maxaa haysanaa 5 kg mass shay cufkiisu yahay 5 kilogram kilogram wixii ku cabiran waxa u naqaan inuu yahay mass m waxa la mid tahay markaas 5 kilogram shay xagee laga soo laadlaadiyay waxa laga soo laadlaadiyay moolo wuxuu sameeyay barabax sameeyay meeqa leeyahay 20 cm 20 cm uu leeyahay maxaa la ii diray markii waxa la ii diray spring constant wax loo yaqaan ma doorsamaha moole spring constant doorsamaha moolada ayaa la ii diray oo ah k maxaa lagu helaa marka qaacidadii iyo waxa islaadi doona sabuurada du'aalad insha Allah ta'ala isoo raacmay tusaaleena shanaad ee jabtarka koobaad waxa ku qoran cuf laga soo laadlaadiyay moolo
ayaa sameeyay barabaxdan 20 sentimitir haddii gravitationku uu leeyahay 9.8 mitir per second square haddaba soo raadi xooga ku keedsan moolada moolo ayaa laga soo laalaadiyay cufkan wuxuu leeyahay 5 kilogram 5 kg uu leeyahay mooladu waxay samaysay displacement barabaxay samaysay dhan 20 centimeter haddaba soo raadi spring constant ama xooga ku keedsan moolada stepskii aan mari jirnay ee koonka ahaa ayaa mari doonaa insha Allah taala waxaan ku hormari doonaa given inaan diyaarsano oo waxaan la siiyey kow mass cufkuwaan la siiyey meequu leeyahay 5 kg 5 kilogram maxaa kaloo la siiyey gravitationka afisjiidka meequu leeyahay 9.8 meter per second square haddaan lagu siin xatee waa constant oo isu bedelo 9.8 meter per second square wax kaloo la siiyey mana muuqda waa displacement 20 centimeter centimeter maahan halbeeg international bedel waxaa samaysaa centimeter waxaa u bedeshaa meter centimeter loo bedelay meter waxaa u dhexaysa 100 haddii halbeeg yar laga socdo mid ka weyn loo socdo mar walba waa loo qaybi jiray 20 waxaa u qaybisaa 100 20 u qaybi waa 0.2 meter anagoo intaan haysano xaleena requirement maxaana loo diray waxaa loo yaqaano spring constant k loo diray k tusaalaankii ka horreeya waxaa kusoo aragnay k waxaa lagu helaa f loo qaybiyey f loo qaybiyey x aa lagu helaa f ma haysanaa maanta marka waa maya f ma haysanaa maya marka hore waxaa soo raadinaynaa marka f waxaa lagu helaa mass oo lagu dhuftay gravitation mass oo lagu dhuftay waxaa soo baranay Newton's second law of motion mass lagu dhuftay acceleration la yiraahdo force maanta acceleration force maxaa taagan gravitation mass lagu dhuftay gravitation si kale u leh weeyda culimid yahay mass lagu dhuftay gravitation sama maadaama shaygan downward uu yahay hoos u jeedo mass lagu dhuftay gravitation waxaa saameyn ku leh marka gravitationka mar walba waxa ku dhufan doonaa marka 9.8 meter per second square force ma culimid yahay marka mass ma haysanaa 5 gravitation kana 9.8 force culimid yahay calculator ka qaado mass lagu dhuftay gravitation waxaa isku dhufataa 9.8 iyo 5 lagu dhuftay 9.8 waxaa soo baxday 49 newton 49 newton hadda waxaa soo helnay force k maxaa lagu helaa marka k waxaa lagu helaa force oo loo qaybiyey x force meeqa haysanaa 49 aan soo helnay 49 loo qaybiyey x na meeqa haysanay 0.2 meter haysanay 49 loo qaybiyey 0.2 marka la calculator ka qaado waxaa dhahdaa 49 loo qaybiyey 0.2 waxaa soo baxday 245 k maxaa lagu cabiraa waxaa lagu cabiraa newton per meter waxaa filaya inaad fahamteen aya tusaalaha lixaad ee jabtarkeena koobaad waxay noo qoran 2 kg mass shay cufkiisu yahay 2 kilogram iyo hangis ku giijisan at the end of spring dhamaadka moolo whose constant moolada oo doorsoomahooda uu leeyahay ama keedu ay leegtahay 400 newton per meter meesha per meter ka maqan 400 newton meterkiiba the mass displaced cufka wuxuu sameeyay barabax ay tusaalaha lixaad isla jabtarka koobaad asnaad wala insha Allah taala waan isla arki doonaa waxa ku qoran 2 kilogram oo cuf ah yaa laga soo laadiyay dhamaadka moolo ka oo xooga moolada ku keedsan uu leeyahay 400 newton per meter cufka wuxuu sameeyay barabaxdan 12 centimeter ayuu mooladu barabixiyay kadibna waa la sii daayay was acceleration waa maxay karaarka mar alaala markii barabax uu maray positive 7 shay ayaa waxaa lagu xiray moolo shaygan cufkiisa wuxuu dhan yahay 2 kilogram 2
kg 2 kilogram ayuu dhan yahay shayga moolada lagu xiray xooga moolada ku keedsan ama keeda wuxuu leeyahay 400 oo newton per meter wuxuu sameeyay marka barabixin displacement uu sameeyay shayga displacement-iga wuxuu sameeyay waxa waaye 12 cm 12 cm barabixintan ayuu sameeyay shayga 12 cm barabixintan markuu sameeyay waxa uu dhahay waa la soo daayay markuu marayo positive 7 cm oo kale markuu marayo qiyaastii soo saar xooga waxa soo saartaa karaarka imisoo laaka waxa qorana marka saddexdii shayood ahaa given-kii requirement-kii iyo furfuridii oo solution-ka ahay given maxaa la siiyay marka ko shay ugu horeeya la siiyay wuxuu ahaa mass cufan la siiyay cufka meequu laaka 2 kg 2 kilogram maxaa kaloo la siiyay waxaana la siiyay xooga moolada ku keedsan meequu leeyahay 400 newton per meter maxaa kaloo la siiyay barabaxa uu sameeyay cufka barabaxa ogow guud ahaan wuxuu sameeyay 12 cm laakiin maanta waxaan laga rabaa anaga markuu positive 7 maraya 7 markuu maraya haddii hal tusaale ay ku kulmaan laba barabaxni mar walbo barabaxa dheer waxaan u qaadan doonaa maximum displacement waxa loo yaqaan amplitude kan waxa u qaadan doonaa displacement oo x maanta x kan waa imisa marka waa positive 7 cm 7 cm markuu sheega maraya centimeter ka nobada 7 loo qaybiyay 100 maxaa soo baxay 0.07 meter inta anagu haysan waxa noo diray waxa soo saartaa acceleration waxa loo yaqaan waxa soo saartaa acceleration waxa loo helaa marka acceleration waxa lagu helaa k x over m laakiin negative direction g ahaan lido ku yahay kx over m k wuxuu tahay spring constant x no displacement m na waa mass sida hore soo barna marka waa haysanaa oo kala bedelna marka acceleration wuxuu mid yahay k ma haysanaa 400 lagu dhuftay x ma haysanaa 0.07 loo qaybiyay mass ma haysanaa mass waxa haysanaa 2 kg acceleration wuxuu mid yahay intaan calculator ka qaado isku dhufo marka 400 oo lagu dhuftay 0.07 oo loo qaybiyay 2 waxa soo baxay 14 acceleration waxa lagu cabiraa meter per second square lagu cabiraa haddii aan qaacidada soo dhex bixinayna cabiradan wayna soo bixi doontaa meter per second square saana ugu soo baxay kayf waxa lagu cabiri jiray newton per meter lagu dhuftay displacement maxaa waay meter waay loo qaybiyay mass-ka maxaa waay kg lagu cabiraa soo maaha meterkaas la bixi inta waxa ka soo haray newton oo loo qaybiyay kg newton maxaa jira marka newton wuxuu ahaa kilogram meter per second square la mid jira loo qaybiyay kilogram marka kilogram la bixi waxa ka soo haray meesha meter per second square si kala daa u dhaadana waxa kaaga fudud acceleration waxa lagu cabiraa meter per second square wuxuu sameeyay barabax at a distance of barabax uu sameeyay meequu leeyahay 12 cm 12 cm uu leeyahay unreleased waa la soo daayay marka 12 cm markuu sameeyay waa la soo daayay what's the acceleration waa maxay karaarka at the instant marana markii the displacement is 7 cm barabaxu markuu marayay 7 cm ay halkaas aynu uga gahay cashirkeeni aad u mahadsantihiin sida wacan ee quruxda badan ee ula socotaan cashiradeena waxaan rajaynayaa inaad fahanteen wixii comments way nala wadaagi kartaan insha Allah taala cashirku wuxuu leeyahay practice iyo lesson exercise ka soo shaqee wixii jawaabo kuuga adkaadane comments-ka inoogu reeba du'aaleed insha Allah taala solution-ka ama xalka ku soo baxan insha Allah taala comments-ka inoo soo dhig aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.